hargal wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan xogayaha filinta dawladda hoose magaalada Burco ayaa barnaamijka hargalka telefishinka caalamiga RTN Martin Nagwa waxa uu taageeray xogayuhu khudbadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi ka jeediyay shirkii wada hadalladii u dhaxeeyay dawladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya hadalka xogayaha ayaa sidan u dhignay in la wada hadlaa oo shirka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan waa wax wanaagsan binaadamku afka isku afkartaan wada hadal bay isku afkartaan waxa la yiraahdo xooluhuna urta isku kartaan in la wada hadlo oo wax la isweydiiyo wixii naga dhaxeeyana da aynu sidaan u kala guran lahayn oo kala qaadan lahayn wax kale ma jiraan waa daruuri laakiin qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland iyadoo gorgortan male madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadii uu ka hadlay ee taariikhiga shalay ka hadlay aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambalyeynayna si sharaf lagu hadlay daruuriguna waxa weeye afartii qodob ee hore ee shirarkii hore ee ay ballan qaadeen lagu heshiiyay inay fuliyaan kuwa hor yaalana waa kuwa markaas uu bilaabmi karaa oo furmi karaa wax la wada hadal laakiin wixii lagu heshiiyay horeba haday xagoodii ka wada xanibantaa oo ka wada joojiyeen sidoo wada hadal u furmi kara ka taasay ku xirantay wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya in kulana waa daruuri madaxweynahana waa ku hambalyeynayna waa ku garab taagan qodobka qof kala aqoontiisa isaga u taalaa sidoo uu arko laakiin waxa weeye daruuri in la wada hadlaa sababtoo tahay wax badan baa in ku kala guranay naga dhaxeeya ka insaas laga qaadan maaha meeshii waxa weeye meeshii madaxweynaha qaranka ee Soomaaliya baa maraya kalsoonina waa laga qaban madaxweynaha in marka la isku garab taago sida wadani bay isku garab taagtay madaxweynaha la isku garab taago muhiim horta dadku inay mid fahmaan baa wanaagsan shiino Soomaaliland iyo Soomaaliya laba wadan oo xuduud kala baahan taariikhiga 1960kii xuduudihii jiray mustacmaradii Ingiriiska wax ayman baahan maanta wax kala go'an ma aha horey Soomaaliland iyo Soomaaliya xuduud u kala lahayn oo ay laba dalo jaara u wada ahaayeen Soomaaliland dabada marka iyada ula tagtay 60kii wax la yiraahdo midnimo maanta iyaga dadkii arkay oo xorriyadoodii markii garan waayeen isku garan waayeen midowgii Soomaaliya ay ku midoobeen wax badan iyo carqalad ka yimaadeen xasuuq badan ka yimid dhibaato badan ka yimid caburin badan dadku waxay markaa qaateen iyaga go'aankooda qaatay in dib ula soo noqdaan xorriyadoodii wax cusub oo maanta la sameeyay Soomaaliland ma waa wax jiray oo taariikh leh oo xuduud leh oo la aqoonsan jiray oo la aqoonsanaa oo dawladda la yaqaan dadku inay fahmaan ayuu muhiim ah waxaynu maanta ku dhawaaqno oo aynu goosanayna ma aha dalkeenu dal jiro oo calal leh oo adduunka laga aqoonsan yahay oo xuduud leh oo wax kasta leh waxa loo wada galay midowgadiina inaga sameeynay maantana waynu ku garan weynay codkii shacbiyada ayaa go'aansaday arinkan sida way markaa in loo kala fahmo Cabdi Qani Baafo barnaamijka hargalka telefishinka caalamiga RTN magaalada Burco